dad u dhintay dariiqo doqoniimo ah. Dhimashadu waa xaqiiqada keliya ee qof kasta oo dunida ku nool aanu inkiri karin. Mararka qaarna dhimashadu waxay imaataa xanuun daran kadib amaba si lama filaan ah oo ay qofka ugu timaado. Dhanka kale waxaa jira dad ay doqoniimadooda iyo sida bilaagaraadka ee u dhaqmayaan ay sababto in ay dhintaan oo aynu ku ogaanayno muuqaalkeenan maanta. Inta aynu bilaabin muuqaalkan, fadlan haddaad ku cusubtahay channelka, subscribe si ay kuu soo gaaraan muuqaalada kale ee aynu soo gelino. mahadsanida. Number 1, gadh sababay dhimasho. Harvey Stem wuxuu ahaa nin madax ka ahaa tuulada la yidhaahdo Brank ee dalka India. Heard wuxuu caan ku ahaa gadh dheer kaasoo dhererkiisu yahay 1.4 mitir. Heard wuxuu ku dadaali jiray sidii uu nadiifin lahaa gadhkiisa una feeri lahaa mar walba. kadib waa uu laalaabi jiray wuxuuna ku ridan jiray jeebkiisa. wax dhib ah kama iman jirin arrinkaas uu Heard samayn jiray maalin walba. maalin maalmaha ka mid ah oo ay taariikhdu ahay Sebtembar 1567 dab ayaa ka dilaacay tuuladii Heard. dadkii tuuladuna waa ay soo booqeen. Heard wuxuu isku dayay in uu dadka dejiyo. waxa jeebkiisa ka soo dhacay gadhkiisii. waxa isku dayay inuu ku celiyo gadhka jeebka mar kale, laakiin mu awoodin mar uu ka soo degayay. catabad ama jaranjaro aad u dheer ayaa uu gadhkiisa ku istaagay, waxaana ka soo dhacay catabadii ama jaranjaradii, taasoo sababtay inuu madaxa u dhaco, waxaana jabtay qoortii. si degdeg ahna waa uu u dhintay. Number 2, isku daygii muqaamarada. wiilkani waa Kiyami, waa wiil Chinese ah oo naftiisa khatar u geliyay meelaha sarsare inuu koro sawirna iskaga soo qaado soona dhiga baraha bulshada, waliba meelaha ugu khatarta badan. maalin maalmaha ka mid ah ayuu koor meel aad u sarreysa sawirna iska qaadaya ayaa uu lugihii la waayay geerkii gidaarka, waxaana uu ku soo dhacay dhulka. degdegna waa uu dhintay. muuqaalkanina waa kii ugu dambeeyay ee ay kaamaradu qabato. Number 3, nin madaxa iska gooyay. taariikhdu markii aad 1995 koox wiilal ah oo ka kacday falal aad u xun oo ah inay ku kala tartamaan isku dayo halis ah. markay wiilashii khamri ka dhargeen ayaa mid ka mid ah wiilashii uu isku dayay inuu farta suulkiisa miishaar ku jaro, halka midkii labaadna uu isku dayay inuu qoortiisa ku gooyo miishaar, uuna ku dhaqaaqay oo waa uu iska jaray qoortiisa.